السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaynu u nahay safar xaggaas iyo hawada sare waxaynanu rar ka dhigan doonaa duusha meeraha farrare kaasi oo ah halxidhaalaha ugu weyn ee culimada hawada sare. fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe and like waa noo muhiim waad mahadsan tahay. aynu bilowna mawduuceena maanta. Mars, mariikha ama afka Soomaaliga farrare sidoo kale lagu naanayso meeraha caas dabcan iyadoo loo sababaynayo in ciidiisa iyo dhagxantiisa ay ka buuxdo cunsurka biirta taasi oo siinaysa muuqaal casaan xigeen ah. sidoo kale waxa lagu arki karaa isha caadiga ah habeenkii. waa meeraha afraad ee u xiga qoraxda iyo deriskeena dhulka. sidoo kale waa meeraha labaad ee ugu yar bax qoraxeedka isagoo kaliya ka weyn meeraha Mercury. ereyga Mars waxa laga soo xigtay Roomaankii hore kaasi oo noqonaya ilaaha Roomaanka ee dagaalka. da'da kowkabka waxaa lagu qiyaasaa 4.603 bilyan oo sano. subxaanallah, cilmiga Allah ayaa leh laakiinse insaanka wuxuu siiyey kitaab furan kaasi oo ay samanka uga qiyaas qaadan karaan. fogaanta uu qoraxda u jira waa 228 milyan kiiloomitir. sidoo kale inuu hal wareeg oo dhammaystiran ku wareego qoraxda waxay ku qaadataa 687 maalmood. marka uu inoogu dhow yahay wuxuu inoo jiraa masaafo dhan 63 milyan kiiloomitir. sidoo kale marka uu inoogu fog yahay wuxuu inoo soo jiraa 250 milyan oo kiiloomitir. waana masaafo ka fog 1000 mar inta dayaxu inoo jiro. badka dhulkiisu waa 5 milyan kiiloomitir iskuweer waxayna ku qaadataa inuu gaadho iftiinka qoraxdu 10 saacadood oo xidhiidh ah. heerkulkiisu inta badan waa qabow 27 digrii dabcan waa marka uu ugu kulul yahay halka sidoo kale uu qabowgiisu u dhaxeeyo -55 ilaa 135 digrii taasi oo ay sabab u tahay fogaanshihiisa uu cadceedda ka fog yahay. maalintiisu waa tan dhulka oo kale keliya wuxuu dheeryahay 40 daqiiqo. haddii aynu rabno inaynu aadno dabcan waxaynu u baahannahay 7 ilaa 8 bilood oo aan kala joogsi lahayn innagoo sii dhex jibaaxayna masaafooyin dhulka ka baxsan balaayiin kiiloomitir. dabcan masaafadani waa marka uu joogo waddadiisa inoogu dhow taasi oo dhacda 2 sannaba hal mar. xilliyadiisu waxay 2 jeer ka dheer yihiin kuwa dhulka aynu naqaano. ciidda kowkabku waxay aad u shabahdaa tan dhulka. warbixinta uu inaga soo gaadhsiinayo markab cireedka Phoenix ayaa ina leh in ciiddiisu hodan ku tahay canaasiirta kale ah magnesium, sodium iyo potassium kuwaasi oo dhammaantood dhulka laga helo iyagoo door muhiima ka qaata waxbeerista. waxaa markii ugu horeysay teleskob ku arkay caalimkii weynaa ee Galileo Galilei sanadii 1564. sidoo kale wuxuu martigeliyaa waadiga ugu dheer bax qoraxeedka ee mariikha kaasi oo taxan masaafo dhan 4000 oo kiiloomitir hoosna u qodan cabir dhan 7 kiiloomitir. iyo sidoo kale buurta ugu dheer nidaamka ee Olympus taasi oo kor u taagan 25 kiiloomitir. meeraha cas waa mid ilaa xad u eg dhulka waxaanu leeyahay dooxooyin iyo togag qalalay waqti hore. sidoo kale wuxuu leeyahay bannaano, buuro, dhagaxaan, jawi ka khafiifsan kan dhulka iyo dabaylo. sidoo kale wuxuu leeyahay 2 dayax oo yaryar kuwaasi oo lagu magacaabo Deimos iyo Phobos. meeruhu wuxuu lumiyey gibilka hawada sare ee atmosfeerka qiyaastii 4 bilyan sano ka hor iyadoo loo malaynayo inay sabab u yihiin weerarada kaga imanaya cirka fog iyo astronoidka taasi oo ugu dambayn sababtay inay toos ugu soo dhacaan fallaadhaha sumaysan ee qoraxda. jawiga meeruhu wuxuu ka samaysan yahay 6% carbon dioxide halka oksijiintiisu ka yar tahay 0.18%. ilaa hadda waxaa la og yahay in markab cireedyo gaadhaya 18 loo diray meeraha Mars kuwaasi oo ay kala lahaayeen midowga Sofiyeet, Maraykanka, midowga Yurub, Hindiya, Imaaraadka Carabta iyo Shiinaha. midowga Sofiyeet ayaa bilaabay aadista meeraha kadib markii ay u direen markab cireedkoodii Robotics sanadii 1960 kadibna Mariner 4ka Maraykanka sanadii 1964.
waxaa mar kale lagu tuuray sannadii 1971dii markabadihii hawada sare ee midowga Soofiyeed Maris 2 iyo Maris 3 kuwaas oo ku gaadhay si guul leh laakiin ku guuldaraystay inay ka soo gudbiyaan xogo wax ku ool ah sababa la xidhiidha duufaano iyo boodhar xawaare sare ku socda kuwaasi oo boqolkii sannaba hal mar cabira dusha meeraha sahamintii ugu dambeysay ee dusha kowkabka ayaa ahayd 18 February sannadan 2021 iyadoo uu dunida u sahan tegay markab cireedka Perseverance kaasi oo ku hubaysan tiknoolajiyad casri ah waxaanu ku sugnaan doonaa halkaas muddo 2 sano ah isagoo dib dhulka ugu soo noqon doona waxaana uu hore u soo xambaari doonaa xaddi dhagxaanta iyo ciidda kowkabka ah iyadoo lagu samayn doono baadhitaano jawaab u noqon doona su'aalahan ma lagu noolaan jiray biyo ma lahaan jiray hadda kadib ma lagu noolaan karaa iyadoo jawaabaha su'aalahani laga sugayo markab cireedka Perseverance iyadoo aadamuhu uu ku fikirayo inuu fasahaadiyo kowkab aan ahayn dhulka mar kale laakiin dabcan taasi uma muuqato mid caqligal ah intaasi ayuu ku eegyahay muuqaalkeena maanta fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe and like waa noo muhiim waad mahadsan tahay